degdeg waa camal shaydaan. bal muuqaalkani la daabo siina sheer garee walaal si ay dadka kale ugu cibro qaataan. halkani waxaa fadhiya laba wiil. labadii wiil halkani fadhiya waxaa soo agmaray wiil kale oo goobtii ay fadhiyeen soo maray. wiilka kale soo maray waxaa ka dhacday lacagtii waxaa qaaday labada wiil mid ka mid ah. markuu qaadayeyna waxaa arkayay ama kor ka arkayay wiilkii kale ee ag fadhiyey, wuxuuna soo aaday wiilkii lacagtii qaaday. markaas ayuu handadaad isagoo handadaya lacagtii si xooga uga qaaday. wiilka lacagta ay ka dhacdayna wuxuu taagnaa meesha isagoo taleefan ku hadlayay. maxaad u siin weysay lacagta oo aad ugu geyn weysay haddii ay ka dhacday lacagta, ayuu ku yidhi wiilkii. lacagtii wuu qaaday, wiilkii ay ka dhacday ayuu u geeyey. wuxuu ku yidhi walaal lacagtani ayaa kaa dhacday. yarkaasi ayaana qaaday lacagtani, dhulka ka qaaday, asaga ayaana haayay. marka waatan walaal lacagtaada, waa mahadsan tahay walaal, sida aad iigu keenta lacagta ayaa lagu yidhi. goobtiisii ayuu dib ugu soo noqday wiilkii lacagta u keenay wiilkii kale. waxaa bartiisii asagana fadhiya wiilkii markii hore lacagta qaaday ee dhulka ka qaaday. degdegu waa camal shaydaan, ma ahan wax fiican. wiilkii bartii fadhiyey ma ahayn wiil lixaadkiisa uu dhammaystiran yahay. ma ahayn qof awooda in uu istaago lacagtana u geeya qofkii ay ka dhacday ma ahayn. wuxuu ahaa wiil cuuryaana. wiilkii kale markii uu arkay in uusan wiilkani ahayn mid lixaadkiisa uu dhammaystiran yahay, aad ayuu u naxay ficilkii xumaa ee uu sameeyey. aad ayuuna u fiirinayay markii halkii laga kaxaynayay isagoo lagu qaaday weliba gaariga dadka cuuryaanka ay ku socdaan. isagoo aad u fiirinaya weliba ficilkii xumaa uu sameeyeyna ka shallaynaya weliba, ayuu wiilkii halkii ka dhaqaaqay. wuxuu dib u milicsaday ficilkii xumaa uu sameeyey markii wiilkii lacagtii dhulka uu ka qaaday. aadna wuu uga xanuunsaday wixii uu sameeyey. qofku waxaa habboon marka hore intuusan ficil ka samaynin ama uusan degdegin in uu wax hubsado. haddii aad nasiib u yeelatay oo uu ku soo gaaray muuqaalkani, gaarsii walaalaha kale walaal, si ay iyagana ugu faa'iidaystaan ayna ugu cibro qaataan.